Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal soo dhawaad dhamaantiina fiiwan maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo sida loo dalbado ama sida loo sameeyo refinansiga ama khasaare kabista. ugu horeyn haddii aan sharaxaad kaa siiyo waa maxay refinansiga. kasoo qaad waxaad haysataa akoonka $50,000 soo akoonkii waxaad khasaare u geysatay ama aad ka dhigtay $48,500 taasoo la micno ah inaad khasaarada ay geysatay ay tahay $1,500. Bluefix haddii aad refinance ka dalbato waxay awoodaa inay akoonkaaga dib kugu soo celiso oo ay kaaga dhigto $50,000. waxaad meesha ka bixi doonto in aad waqti ku dhimiso in khasaaradaada ama adiga khasaarada aad geysatay aad dib usoo kabto. soo haddii aad refinansiga soo dalbato shirkadda waxay kuu fududeyn doontaa inaad khasaaradaada dib aan usoo kabno. soo si aad akoonka refinansiga ugu dalbato waxaad u baahan tahay inaad haysato akoon active ku ah. tusaale ahaan waa inuu akoonkaaga active ahaada akoonka leadka ama akoonka proga. soo sidoo kale waxaa jiri doonto lacag khidmad ama £50 ah oo la bixin doono oo ah lacagta refinansiga aad ku sameyn karto. soo hadda waxaan ku tusi doonaa qaabka aad u sameyn lahayd refinansiga oo aad khasaaradaada usoo kabi lahayd haddii aan wada tagno ama wada baaqno website-ka. hadda sida ujeedin waxaan joognaa qaybta website-ka. waxaad ku dhufataa login, waxaad gelisaa emailka iyo passwordka aad isku diiwaan gelisay, kadibna waxaad doorataa login. kadib waxaad tagi doonaa qaybta weynta ama dashboardka website-ka. waxaad fiirisaa dhanka bidix ee ay ku qoran tahay trading account. ku dhufa trading account markaad ku dhufato waxaad kusoo bixi doonto webkan hoos u soco. waxaad ka doorataa qaybta refinansiga ay ku qoran tahay dooro request. kadib waxaa kusoo bixi doono ma rabtaa in khasaaradaada lasoo kabo. soo confirm garay oo waxaad dhahdaa waan ogolahay. markaad confirm gareysid wuxuu si toos ah kuu geyn doonaa qaybta paymentiga ama qaybta aad lacagta ku bixi lahayd. sidaa ujeedid qaybtan waxaad doorataa make payment dheh. soo make payment markaa dhahid wuxuu ku geyn doonaa qaybtan. waxaad gelisaa xogta kaarkaaga iyo informationkaaga oo idin, kadibna bay dheh lacagta bixi. soo wax limit ah ma laha ama ma ku xirnaan doonto ama wax limit ah ma lahaan doonto inta mar adiga aad dalban doonto refinansiga. ma aha wax xadidan. mar walbo aad refinansiga dalbatana waxay ku xiran tahay teamka riskiga inay ku approve gareeyaan. haddii teamkaas ay ku reject gareeyaan ay kuu diidaan inaad refinansiga aad sameysato ayna ku arkaan qof aadan awoodin inaad profit ka sameyso akoonkii lagu dhigtay, kadib waxaa dib lagugu soo celin doonaa lacagtaadii refinansiga ah. soo su-aasha kale soo weydii mar walba waxay tahay haddii akoonka 10% oo aan khasaare gaarsiiyo oo aan khasaaradii guud aan gaarsiiyo refinansiga ma dalba karaa? yes waa dalba kartaa. refinansiga waa dalba kartaa, laakiin sidaan wada ognahay markii aad 10% khasaare gaarsiiso akoonka si automatic ah ayaa qofka loogu xiraa ama subscription-kiisii waa la xiraa. waxaad u baahan tahay ugu horeyn akoonka inaad resubscribe aad ku sameyso, aad dib u cusbooneysiin ku sameyso. markii aad dib u cusbooneysiin aad ku sameyso waxaad bixin doontaa oo aadna bixiso lacagtii oo dib u cusbooneysiinta. waxaad bixin doontaa lacagta £50 ah oo ah lacagtii refinansigii ah lagugu sameyn lahayay. soo markaad refinansiga aad bixiso kadib waxaa ku qiimeyn doona teamka riskiga. haddii ay teamkaasi ku arkaan, haddii ay teamkaas ku ogolaadaan, khasaaradaada dib ayaa loo soo kabi doonaa. soo haddii ay kuu diidaan teamkaas ayna reject ku siiyaan waxaa dib lagugu soo celin doonaa lacagtii subscription-ka aad bixisay iyo lacagtii refinansiga aad sameysay. soo si aad ugu digtoonaato in khasaaradaasi ama dhibkaasi uu kugu dhaco waxaad u baahan tahay ugu horeyn inaad si fiican iskaga akhristo terms and conditions ee shirkadda. waxaadna booqataa linkiga hoos yaalo bluefix.co.uk/terms. halkaas ayaad ka heli doontaa macluumaadkoo idil oo ku saabsan barnaamijkan. haddaba su-aasha waxay tahay maxay tahay faa'iidada igu jirto ama faa'iidada kugu jirto inaad refinance ka sameyso oo aad haddii aad haysato akoonka 25k 50k haddii aad khasaare geysato maxaa waaye ujeedka aan ka leenahay. sida caadiga ah drawdown-ka ama in qofka in akoonkii uu dib hoos u dhac ku sameeyo waa mid iska caadi ah oo traderska suuqan dhan ay qabaan. ujeedada koowaad aan ka leenahay waxay tahay in traderka uusan wax waqti ah meeshaas ugu khasaarin oo aan khasaaradiisii dib ugu soo kabno, kadibna uu si fudud ku gaaro 5% targetkiisa withdrawalka ku sameeyo. wax waqti ah kama dhumi doono traderka haddii uu refinansiga uu dalbado oo waxaa dib loo soo kabi doonaa khasaaradii uu geystay. midda kale xigta oo faa'iidada uu tradersku u leeyahay waxay tahay traderka
wax murug kuma hee doonto haddii akoonka khasaaro uu geysto ama wax waqti ah uguma dhumi doono. Wuxuu si easy ama si fudud u dalban karaa refinansiga oo kadibna waxaa tiimka riskiga ay approve gareyn doonaan oo aqbali doonaan refinansiga asigoo bixinaya lacag 50 pound ah. Kadib waxaa u fududaan doonto inuu si fudud targetkiisii uu ku gaaro. Videogan waxaan jeclahay inaad ka fahanteen macluumaad badan oo ku saabsan sida refinansiga loogu dalbado.